maxaa ka cusub deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee Qorilugud iyo sidoo kale Shangeedo oo dagaal uu ku dhaxmaray ciidamada maamulka Somaliland iyo sidoo kale kuwa maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo halkaasi isku farasaray maalinnimadii shalay ahayd isla markaana uu soo kala gaaray khasaare kala duwan. Waxaan kula wadaagi doonaa dagaalka shalay halkaasi ka dhacay, khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale cidda waqti xaadirkan ku sugan goobihii lagu dagaalamay ayaan faahfaahinta kugula wadaagi doonaa iyo waraysi ku saabsan goobihii shalay lagu dagaalamay, khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray. inta tabintan aynu ku guda jirno waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qaaday tallaabo culus, go'aan aad u adagna ku dhawaaqay oo ka dhanah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu kulan la yeeshay danjiraha ku meel gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya Mareykanka kaasoo shalay booqasho ku tagay magaalada Garowe isaga iyo saraakiil ka tirsan howlgalka Africon oo hogaaminaya. Muxuu yahay go'aanka Saciid Cabdullaahi Dani uu ka qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda federaalka Soomaaliya waan kula wadaagi doonaa. sidoo kale gudaha deegaanada Somaliland waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Somaliland iyo sidoo kale xukuumaddiisa. haddaba yaa wada dhaqdhaqaaqaasi yaana hogaaminaya waan kugula wadaagi doonaa faahfaahinta. soo dhawow. sidoo kale golaha mustaqbalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan culus ku dhawaaqay si adagna uga jawaabay hanjabaad maalinnimadii shalay ahayd ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi. qoraal ayay soo saareen golaha mustaqbalka si adag ayayna markaasi ugu jawaabeen wasiirka gaashaandhigga. eedeyn culus ayayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u jeediyeen. maxay tahay eedeynta iyo sidoo kale degniinta ay u direen wasiirka gaashaandhigga waan kula wadaagi doonaa war-saxaafadeedka golaha mustaqbalka. muuqaalka like saar, aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo sida aad u aragto. haddii aad hore inoola joogto ood ku mahadsantahay, haddii aad nala jooginna nagu soo biiro calaamadda subscribe-ka noo taabo hagaaga. sida aad la socotaanba maalinnimadii shalay ahayd subaxnimadii hore waxa uu dagaal aad u qaraar uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Shangeed iyo sidoo kale Qorilugud oo ay isku fara saareen ciidamada maamulka gooni-goosadka ah ee Somaliland iyo maleeshiyaad la socday iyo sidoo kale ciidanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo halkaasi iyagu markaa howlgal ka sameynayay. labada ciidan ayaa mid kasta oo kamid ah waxa uu ku jiray howlgal gaar ah oo markaasi deegaanada uu ku sugan yahay oo ka waday, laakiin si kadis ah ayay markaasi labada ciidan isaga soo horbaxeen waxaana dhex maray iska hor imaad sababay khasaare kala duwan. sida xogaha ay tilmaamayaan hal qof ayaa ku dhaawacmay oo markaasi ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ka tirsan, halka dhinaca Somalilandna uu jiro khasaare kala duwan oo aad markaasi u fara badan oo dhaawac iyo dhimashaba markaasi leh sida xogaha ay tilmaamayaan. deegaanadii lagu dagaalamay wararka aynu helayno waxay sheegayaan inay ku sugan yihiin ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya. dagaalkana uu ahaa mid si kadis ah ku bilowday, laakiin saraakiil u hadashay ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo aynu la xiriirnay ana codsaday inaan codkooda warbaahinta laga baahin ayaa waxa ay sheegeen in weerar markaasi lagu soo qaadi rabay ay ka hortageen oo ay fashiliyeen xilli markaasi ay heleen xogaha in weerar lagu soo yahay oo weerar lagu soo qaadi rabo. laakiin dhinaca Somaliland weli kama hadlin dhacdadaasi iyo iska horimaadka halkaasi ka dhacay. mid ka mid ah goobjoogayaal ku sugnaa agagii lagu dagaalamay oo dhinaca maamulka waqooyi bari Soomaaliya ah oo aynu la hadalnay waraysina la yeelanay ayaa waxa uu markaasi inooga warbixiyay sidii ay wax u dhaceen, goobihii lagu dagaalamay, dagaalka sida uu ku bilowday iyo sidoo kale khasaaraha markaasi uu goobjooga u noqday ee uu arkay ee labada dhinac soo kala gaaray. waxa uuna yiri sida tan: wax weyn oo dhibaato ma jirto, laba nin baa dhaawacmay. dagaal meesha kaba dhicin nimankii reer miyigeeni baa hore u guuray oo hore intuu u galay xagga Qorilugud u yar gudbay Shangeed dhaafay baa la yiri bay yiraahdeen malaa nimankii Qorilugudna idinka qaado xalay shalay ma aqaan bay ciidan halka keenan reer miyigeeni soo dhex dajiyeen. dabeetana waxa la reer miyigeeni baa xalay ka cawdo oo yiri war niman ciidan aan soo dhex tagayo saaka inama yaro aan badnayn oo tobaneeye aba halka sidii soo kormeera bal soo eega ma soo indhayndeeya marka iyagiyo meel fadhiya ka il horeeyada kuweeni baa dabka la saaray. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax weyn ma gaarsiino wiil raacal gariyo holeeyada ina suufi baa halka daamanka ay kaga dhacday xabad. marka isna labada daamba waa jaban, daamanka hoose wax ka noqday. wiilka ilaahay u tayasiro dhakhtarka buu hoola la geeyay, ka kale waa sanifaada waxba ma qabo, waa ladan yahay waa un taabata.
laakiin anaa nimankii la hadlayo ilankaa unbaa halkaa labada daanjaba xabad baa isu martay isaguna waa meel kabmayso haddii balaa kale looga dhigin isna ilaahay usoo duceeyey isna ilaahay u caafiyo markiiba ciidankeeni baa ku kacay oo markay xabadii maqleen oo nimankii cagta loo saarayo way carareen oo qorlugud bay ka galeen say weriyanayeen waa eriyadan dhulkaba waa dhaafiyeen marka intaasaa jirta allah inoo gargaar waa hagaaga haddii aynu markaasi halkaa kaga nimaano qorilugud iyo sidoo kale deegaanka Shangeed oo shalay ay isku fara saareen inta u dhaxaysa ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Somaliland wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa waxaana wararka ay sheegayaan in wali halkaasi labadii ciidan ay isku hor fadhiyaan xiisadna ay ka taagan tahay gurmadyo kala duwanna ay soo kala gaarayaan labada dhinac markana dhinacaas iyo Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalinimadii shalay ahayd kulan la yeeshay safiirka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya markaasi u jooga Mareykanka ayaa waxa uu markaa booqasho ku tagay maalinimadii shalay ahayd magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland waxaana safiirka la socday saraakiil ka tirsan howlgalka Africom ee Mareykanka saraakiishan markii ay Garowe ka degeen waxa soo dhaweeyay madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wasiirada shiray albaabada u xiran yihiin oo ka dhacay xarunta madaxtooyada maamulka Puntland ee Garowe waxa ay labada dhinac ku falanqeeyeen xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sidoo kale caqabadaha waqtigan taagan marxaladan kala guurka iyo muddaxileedka dawladda oo dhamaaday gaar ahaan madaxweynaha waxa ay sheegeen isla markaana warar aynu helayno ay tilmaamayaan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu soo bandhigay nooc doorasho oo Soomaaliya waqti xaadirkan xal u ah madaxweynahana markaasi looga baahan yahay in uu aqbalo laakiin uu la wadaagay safiirka Mareykanka in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonaynin in uu dhageysto mucaaradka iyo sidoo kale in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka ila ka agdhow madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland oo la hadlay Kaalmooy Media waxa ay sheegeen in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu miiska soo saaray qodobada isaga iyo golaha mustaqbalka Soomaaliya ay ka mideysan yihiin ee ku aadan marxaladan kala guurka safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaana waxa ay sheegeen in uu soo dhaweeyay isla markaana uu sheegay in dib ugu laaban doono Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna cadaadis lagu saari doono inuu miiska wada hadalka ku soo laabto arrimaha doorashooyinkana dhaxda soo dhigo mucaaradkana markaasi uu kala hadlo si loo galo doorasho dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin oo isla ogol yihiin madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay safiirka Mareykanka haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta ka dhiman bishan May uu aqbali waayo in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka uuna joojin waayo doorashada halka dhinac ee uu wado in Puntland ay qaadan doonto go'aan culus oo ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in madaxweynaha uusan si toos ah u sheegin nooca go'aanka ah ee uu qaadan karo laakiin ilaha aynu soo xiganay waxay sheegeen in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhawaaqi doono in Puntland ay markaasi iskeed isku maamuli doonto ayna ka madax bannaan tahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii madaxweynaha uu ku sii adkaystana ay qaadan doonaan go'aan gooni isku taaga oo ay Soomaaliya ka go'i doonaan guud ahaanba hadalkan ayaa waxa markaasi xubnaha ka agdhow madaxtooyada Puntland ay ku sheegeen inuu yahay mid markaasi la doonayo in lagu cadaadiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud beesha caalamkana markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku cadaadiso in uu miiska wada hadalka ku soo laabto arrimaha doorashooyinkana ay noqdaan kuwa laga wada hadli karo iyada oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa waqtiga uu ka dhamaadayba ay gebi ahaan waqti xaadirkan ku mashquulsan yihiin in ay qabtaan doorasho hal dhinac ah oo qof iyo cod markaasi lagu sheegay laakiin natiijadeeda markaasi la sii og yahay iyadoo durba markaasi xisbiyadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xisbigiisa kala qayb galay doorashada ay war saxaafadeedyo soo saareen kuna dhaliilayaan doorashadii 10kii bishan ka dhacday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo Baydhabo ay ugu horeyso waxaana kamid ah xisbiga Tawfiiq oo Sheekh Shaakir uu hogaaminayo oo xalay war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu si weyn markaasi u dhaliilsan yahay qaabkii loo maamulay ama loo maareeyay doorashadii ka dhacday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya taasoo ku sheegay inay tahay mid markaasi baalmarsan habraacyadii doorasho ee lagu heshiiyay gabi ahaanba isagoona sheegay inuu ka fiirsan doono kasii mid ahaanshiyaha doorashada dowladda federaalka Soomaaliya waqti xaadirkan ay wado oo si weyn markaasi uu u duray maamulka Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u muuqda markan inay qaadayaan tallaabooyin waaweyn oo markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud cadaadiska ku sii kordhinayo
وهجاك أنا هالكاسي كجني ما إنه بوتلان يسدو كله قان كمركزي مدحونا حسن سعيد عبد الله الدني وكل واقعي كدنا مدحونها مدحليت كيسو ودمادي مدحونا حسن الشيخ محمود dhinacaas iyo Somaliland warar markaasi 24 saac ee la soo dhaafay soo baxayay warbaahintana qabsaday waxa ay markaasi sheegayeen in maamulka Somaliland uu wajahayo kacdoon gudaha ah oo ka imaanaya markaasi dhalinyaro culimo iyo sidoo kale waxgarad maamulka Somaliland deegaanadiisa qaybahooda kala duwan ku nool kacdoonkan waxa markaasi qayb ka ah isla markaana si weyn u horboodaya ninka lagu magacaabo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ku sugan deegaanada Somaliland kaas oo barihiisa bulshada 48 saac la soo dhaafay ku daabacayay qoraal kala duwan oo markaasi uu kaga hadlayo xaaladda Somaliland iyo sidoo kale xiriirka cusub ee ay la sameysatay maamulka markaasi aan dunida inta badan aqoonsiga ka haysanin sida weyn markaasi ay dunida uga soo horjeedo Cabdimaalik iyo xubno kale oo badan ayaa waxa marka ay si weyn u dureen madaxda Somaliland iyo sidoo kale go'aanada ay qaateen waxa si weyn ay u dhaliileen qaar ka mid ah garyaqaanada Somaliland go'aanka Somaliland ay safaaradda markaasi uga furanayso magaalo ay in badan dalalka dunida ee islaamka iyo sidoo kale kuwa kaleba ay diideen in markaasi ay safaaradda ka furtaan waxaana lagu dhaliilay in go'aankaasi uu yahay mid ka hor imaanaya sharciyada caalamiga ah ee qaramada midoobay oo iyadu markaasi u aqoonsan magaaladaasi inay tahay mid aysan lahayn kuwa waqtigan haysto ee sheeganaya Somaliland waxay u muuqataa markan in gudaheeda ay ka taagan tahay xiisad iyo kacsanaan aad u xoogan oo suuragal ka dhigi karta saacad kasta in Somaliland gudaheeda ay markaasi mawjado waaweyn oo laga soo horjeedo maamulka waqtigan talada haya ay ka kacaan ama ay markaasi ka curtaan wixii ka soo kordha waynu arki doonaa wararkeena dambe ayaana markaasi idin kula wadaagi doonaa markana dhinacaas iyo sidoo kale magaalada Muqdisho iyo golaha mustaqbalka dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi oo maalinimadii shalay ahayd markaasi weerar ku qaaday xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya oo isugu jiray weerar hanjabaada iyo mid sidoo kale bahdil iyo sumcad dila waxa markaa war-saxaafadeed kaga jawaabay golaha mustaqbalka Soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saareen golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa waxa uu u qornaa sida tan oo lagu yiri haddii aanu soo koobno war-saxaafadeedka golaha mustaqbalka waxa ay yiraahdeen golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa ay si weyn u cambaareynayaan hanjabaad ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi oo ay sheegeen inuu dil iyo sidoo kale markaasi xarigba ugu hanjabay xubno ka tirsan golaha mustaqbalka Soomaaliya waxay sheegeen oo ay yiraahdeen golaha mustaqbalka hanjabaad ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga ma ahan mid uu kali ku yahay oo wasiirka gaashaandhigga kaligiis markaasi ka soo yeertay oo shakhsiyadiisa markaasi ka turjumayso laakiin waa mid uu wakiil kaga yahay madaxweynaha muddaxileedkiisa sharciga ahaa uu dhamaaday ee sharci darrada ku jooga filla Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud waxay yiraahdeen golaha mustaqbalka Soomaaliya muddaxileedka madaxweynaha waa uu dhamaaday wasiirka gaashaandhigga waxa uu adeegsanayaa caburinta iyo cagajugleynta golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa ay soo martay si weyn uga dharagsan tahay cagajugleynta caburinta iyo sidoo kale handadaadaba inaysan wax faa'iido ah lahayn isla markaana masiirkeeda uu noqonayo oo kaliya burbur iyo in markaasi lagu kala tago waxay yiraahdeen waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday inuu ka waantoobo fariimaha uu wakiilka uga dhiganayo nimanka aan garanaynin anshaxa iyo sidoo kale dawladnimada waxaana ugu baaqaynaa in madaxweynaha uu ka tanaasulo is adkaynta iyo isku dhajinta kursiga oo la og yahay halka ay markaasi ku dambeyn doonto golaha mustaqbalka waxay ugu baaqeen beesha caalamka haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay gacmaha ka qaban waayaan in xaaladdu meesha ay maanta taagan tahay aysan sii taagnaan doonin oo maalin kasta ay wax isbedeli doonaan halka maanta la joogana ay noqon doonto meel la dhihi doono waxay ahayd halkii ugu fiicnayd ee wax laga qaban karay sidoo kale
golaha mustaqbalka waxa ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u direen fariin ah in aan loo adeegsanin siyaasad. wax kasta oo ay maanta sameeyaan ay noqon doonto wax ay iyagu biri kali ku noqon doonaan, lagulana xisaabtami doono, sharcigana lagu horgeyn doono. sidoo kalena saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayay ugu baaqeen inay bannaanka ka istaagaan siyaasadda iyo in markaasi nidaam waqtigiisii sharciga ahaa uu dhammaaday ay u adeegaan oo ay awaamiirta ka qaataan. si gaar ah ninka ku magacaaban taliyaha booliiska gobolka Banaadir lagu magacaabo Macalin Mahdi ayay si adag fariin ugu direen oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin si toos ah markan siyaasadda ugu dhaxmilmay, siyaasadana ugu shaqeynayo kadib markii ay sheegeen in barihiisa bulshada qoraalada uu ku baahinayo ay yihiin kuwa siyaasadeed oo uu ku difaacayo nidaamka waqtigiisa uu dhammaaday ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxayna sheegeen maanta haddii uu qaato go'aano qaldan in biri uu yahay shakhsiga lagula xisaabtami doono. madaxweyne xasan iyo ra'iisul wasaare xamsana ay iska bixi doonaan oo beri ay ka noqon doonaan, laakiin askarta maanta dembiga gashay iyo saraakiisha amarka siisaba ay noqon doonaan eedeysanayaasha maanta iyo sidoo kale dembiilayaasha biriba. haddaba sidee u aragtaa hadalka golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo digniinta ay u direen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidamada markaasi guud ahaanba iyo baaqa beesha caalamka ay u direenba? guud ahaan wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo. suuragal ma tahay in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani maamulka Puntland ay qaataan go'aan ay kaga go'ayaan Soomaaliya haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diido inuu miiska wada hadalka kusoo laabto, doorashadana uu dhexda soo dhigo? qaybta faallada nagula wadaag aragtidaada.